magaalada Muqdisho waxaa soo gabagabeeyay tababar la siinayay 20 suxufi oo ka kala socday warbaahinta codka caasimadda iyo warbaahinta qaranka. tababarkan oo ay si wada jir ah u soo diyaariyeen xafiiska agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir iyo hay'adaha IMS Foja ayaa wariyaasha la barayay badqabka suxufiga iyo tabinta saxda ah ee doorashooyinka waxaana uu socday muddo 4 cisho ah. xafladda lagu soo xiriyay tababarka ayaa waxaa hadallo kala duwan ka jeediyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee amniga iyo siyaasadda, agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir iyo madaxa mashaariicda hay'adaha IMS Foja, kuwaas oo ka hadlay casharada ay qaateen wariyaasha iyo sida looga baahan yahay inay ficil ahaan ugu bedelaan waxa ay barteen. Abuukar Axmed Sheekh Albadri oo ah madaxa mashaariicda hay'adaha IMS Foja ayaa tilmaamay intii tababarka uu socday in wariyaasha la baray habka ugu wanaagsan ee wariyaha uu soo tabin karo doorasho lagu kalsoon yahay uuna ku badbaadin karo naftiisa. waxa uu tilmaamay in wariyaasha la barayay sida wariyaha uu daryeel caafimaad iskugu fidin karo amaba uu ugu fidin karo wariyaha saaxiibkiis ah haddii ay dhibaato ka soo gaarto inta ay howlmaalmeedkooda gudanayaan. waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu ka rajeynayo wariyaasha tababarka la siiyay in ay waxa ay barteen u bedelaan si ficil ah. waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo mar walba hay'adahan aan ka wakiilka ahay oo in badan ka shaqeeya tababaradan Muqdishona uu yahay tababarkii 6aad ee aan had ku qabanayno min 4 maalmood ah usoo qabanay Jowhar iyo Baydhabo u soconno Dhuusamareeb iyo Kismaayo iyo sidoo kale Garowe iyo Boosaaso. intaba ujeedadu waxay tahay in saxafiyiinta Soomaaliyeed laga caawiyo badqabkooda. agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir Mudane Cabdullaahi Wiish ayaa u mahadceliyay hay'adaha IMS Foja iyo macallimiinta tababarka bixinayay. waxa uuna tilmaamay in tababarkan la qabtay xilligii la rabay maadaama dalka ay ka dhacayaan doorasho. waxa uuna ballan qaaday in tababarada noocan oo kale ee la siinayo warfideenada gobolka Banaadir la kordhin doono. waxaan filayaa in aan marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahad u celino oo bilaw fiican ugu bilaabay in aan ku bilaabano seminaarkeena maantana gabagabadiisa aan taaganay. shalay markaan meeshaan soo wada galeynay aniga xataa daan isku daro waxaan wada ahayn dad wax badan oo hadda aan faa'iidnay aan hor u haysan badqabkeena anagoo wada og qaar laakiin siyaabo badan markaa idinka xataa hoos isugu dhimin isu wareysanay waxaa soo baxday in waxyaalo badan aan ka faa'iidaysano seminaarkan. ugu dambeyn waxaa tababarka soo xiriyay oo isla munaasabada shahaadooyin ku guddoonsiiyay wariyaasha gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee amniga iyo siyaasadda Mudane Cali Cabdi Wardheere ayaa wariyaasha tababarka la siiyay kula dardaarmay inay doorashooyinka dalka ka dhacaya u soo tabiyaan si daacadnimo ah oo ay runta ku dheehan tahay ayna ka fogaadaan inay dadka been ugu soo warmaan inta doorashada ay socoto. aniga ruuxiga meelaan saxufiga ana tababar ku qaaday ومال تفسير كله تفسير بحياة باش هذا الرجع كل دارش واحد يقولها باش هذا حفظه كل دارته حكمنا يقول مسجنا أنا يقول هي باش وقت الدكتوراه وحاول مررته لكن هيك سبيتش بس إلى عليها ودي أعتقد كذي كلام لكن يكون جرت الشروع ده فيسبوك جرت أنا هيك سبيتش كحسوا حيابها ويقولوا لكن حين كلام كل كذا يكمل هاي xilli marka tababarka waxaa dhamaysateen electionkii ah kalama jeedo marka inaad taxadirtaan dowladda u naxariista kalama jeedo waa dhici kartaa in lagu xagliyo dowladda waxbayaan loo reeban mucaaradka waxbayaan loo reeban laakiin wixii dalka iyo ummadda dab u ah ka shaqeeya oo tabiya waxaan rabaa marka officially waa loo xireeyahay waa la mahadsantiin. tababarkan ayaa ka mid ah tababarada maamulka gobolka Banaadir uu uga gol leeyahay in uu ku xoojiyo aqoonta iyo xirfadaha ay leeyihiin wariyaasha iyo guud ahaan shaqaalaha idaacadda codka caasimadda. Jamaal Cabdinaasir, idaacadda codka caasimadda.